hogaaminta siyaasadda wadamada caalamka ayaa xilligan u muuqata mid ay la wareegayaan dhalinyaro da'doodu ay ka yar tahay 40 sano jir halka markii hore ay siyaasadda hogaamin jireen dad da'ah. Sanna Marin oo 34 jir ah ayaa loo doortay in ay noqoto ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Finland, waxaana gabadhan loo aqoonsaday ra'iisul wasaaraha ugu da'da yar ee dunida xilligan. Gabadhan oo hore u ahayd wasiirka gaadiidka ee dalka Finland ayaa loo doortay in ay noqoto ra'iisul wasaaraha dalka Finland kadib markii uu isxasilay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi. Sanna Marin ayaa hogaamin doonta xukuumad wadaag ah, siyaasadeedu bidix dhexe tahay oo ka kooban 5 xisbi, waxaana xusid mudan in 5tan xisbi ay dhammaan hogaaminayaan dad dumar ah. Ra'iisul wasaaraha ugu da'da yar ayaa hore waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Ukraine Oleksiy Hancock oo 35 jir ahaa, waxaana hadda la wareegtay ra'iisul wasaaraha ugu da'da yar dunida Sanna Marin oo ay da'deedu tahay 34 jir.